waxaan rabaa inaan idinla wadaago go'aan aan qaatay oo ah inaan iska casilo xilkii agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xilkaasoo aan hayay muddo iminka ku siman 9 bilood 9 bilood aan xilka hayayna runtii intoodii badneed aan ka fikirayay xilkan inaan ka tago sababta igu kaliftay la isweydiin karaya sababta igu kaliftay waxaan arkay systemka iyo nidaamka dawliga ee maanta dalka ka jira inuu yahay mid askari ah oo aan lahayn ama aanay ka muuqan dhaqankii iyo haybadii iyo milgihii dawladnimo lagu yaqaanay oo moodoba inay gacanta ku hayaan koox aan oran karo waa ciilqabayaal oo ninkii maalin eray ku yiri ama ninkii maalin weer ka qoray aan ilaawid oo dabeedna ku aargoosanaya kuna aargudanaya kursiga inta badan marka laga hadlayo ay dalajada caalamiga ah ninka hogaamiyaha ah ama kooxda madaxda ah haday ciilqabayaal noqdaan oo ay nolosha ilaawi waayeen godobaha hore u dhacay ciiday markaa hogaamiyaan way jabtaa marka waxa ii muuqatay dalkii iyo dadkii dawladda loo ahaa oo mustaqbal mudoobi ku soo fuuleeyahay oo hoobaan ka sii dhacaya marka waxaan go'aansaday intii aan systemka noocaasa ka mid noqon lahaa ee igu duldumi lahaa inta aan maanta maxay ahayd nadiifta ahay inaan dibadda uga baxo oo wixii aan sixi karayo dibadda ka soxo waayo waxa adkaatay inaan gudaha wax ka soxo dawladnimadina wax moodaaba inay isu bedeshay afraad ashkhaas halkii ay koox ka ahayd ama team waa ka ahaan lahayd inay koox ayaad moodaa maxay ahayd inay ashkhaas noqotay iyo afraad baad moodaa waxaan isleeyahay wasiirku cid lala shaqeeyo oo cid ugu fiican buu ahaa wasiir dhalinyaro ah oo aqoon-yahan ah oo mudakara oo aragti leh fog leh ayuu ahaa maantana ma jooga dalka Ingiriis ku jira laakiin anugu halka aan ka hadlaya waa wax wasiirka inta wasiirka ka sareysa waa inta wasiirka ka sareysa faahfaahinta arintaana insha Allah marbaan si gaar ah oo detail ah intaan idinku yeero aan maxay ahayd idla wadaagi doonaa laakiin maanta iclaam baan ugu talagalay Allah dalkan iyo dadkana Ilaahay waxaan uga rajaynayaa inuu u keeno hogaamiyayaal caafimaad qaba oo aan maxay ahayd ciilqabayaal ahayn oo dalkan garanaya halku maanta yaalo in laga raro oo degal ka maxay ahayd nolol rool oo ka xasiloon roon oo ka badhaadha roon oo ka barwaaqaysan dad garanaya inay dadkooda u raraan in Ilaahay u keenaan rajaynaya waxaan halkan uga mahad celinayaa shaqaalihii wasaaradda cadaaladda qaranka oo ahaa shaqaalo aad iyo aad u tababaran aqoon fara badan iyo xirfad sareysa lahaa muddadii aan joogay si fiican ila shaqeeyay